السلام عليكم فايدooyinka wanaagsan ee laga dhaxlo maareynta waqtiga iyo qiimaha uu nolosha u leeyahay waa mid Alle subxaanahu wa ta'ala inuu sheegay aayadaha Quraanka Kariimka waxa uu ku dhaartay qayb ka mid ah waqtiga shareecadeenu waxayna faraysaa inaan ka faa'iideysano waqtigeena si fiican nacfi badan axaadiista nabiga suuban naxariista nabadgelyo korkiisa haatee waxayna farayaan ilaalinta waqtiga waxaad ku dareemi kartaa waqtiga iyo qiimaha uu noogu fadhiyo shanta salaadood oo ah kuwa ku xadidan salaad kasta lagamana yaabo inay ku tukato waqti aan waqtigeeda ahayn saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa laga soo wariyay inuu yiri waxaan aad u dhibsadaa inaan arko qof aan waqtigiisa ka faa'iideysanayn adduun ama mid aakhiro hadaba su'aashaas waxa ay tahay sideen waqtigeena uga faa'iideysan karnaa si aad waqtigaaga qiimihiisa ugana faa'iideysato raatil maamaha soo socda هذا ولجيت وقتها هكو عضاضو أو كو قشيسانادو إناد كفكرتو وحي قبل لهاي سي قبل لهاي كلا هورين يهورتبينتا كوباد لباد إن وقت قابل أدكو قبطها والبضن وحيابها كو سهل كرا إن الوقت إياها والبضن شكو قبطانا وإناد برطو xirfadiisi inaad ka hortagto mushkilado badan adigoo u maray waqti gaaban ogow mar kasta inaad u baahan tahay tababar iyo go'aan dhankaaga ah sida aad u filin lahayd qodobkan mar walba waqtigaaga aad ka faa'iideysato naftaadu waxay dareentaa farxad waa abaalmarin ku jiidaysa dhanka horumarka mar walba aad ilaaliso waqtiga iyo qiimihiisa waxaad noqonaysaa qof rajo wanaagsan kala nolosha horumarkiisuna uu joogto yahay mar walba aad ilaaliso waqtiga waxaad ka hortagaysaa hawlo badan oo dib dhici lahaa haddii aad ilaaliso waqtiga waxaad ka hortagaysaa walwalka waxaana bilaabaysaa maalin walba nolol wanaagsan oo qurux badan haddaba dadka intooda badan kuma qanacsanaan nidaamka ay noloshooda ku maareynayaan sababtuna waxay tahay inaysan garanayn waqtiga iyo qiimihiisa culimada cilmi nafsiga ayaa waxay sheegayaan in walwalka badan ee dadka qaar ku dhaca ay sabab tahay ayaga oo aan ka faa'iideysan waqtigooda taasina ay u keenayso caafimaad xumo iyo nafti oo si caananaysa si joogto ah haddii aad si qoto dheer u fiiriso qaabka dunida ay ku socoto iyo nidaamka loogu talagalay waa mid ku salaysan waqti maalinna arki maysid iyadoo la leeyahay qoraxi ma soo bixin iyo wixii la mid ah inaan ka faa'iideysan karno waqtigeena uga faa'iideysano wax walba oo fiican oo wanaagsan waxaan ku gaaraynaa guul nolosha waxay noqonaysaa mid wacan oo aad u dhaaramaysa الوقت كالصيف إن لم تقطعه قطع وقت واصف أوكله أنت أنا كتر أدقو تر همي أما هنصري وأديالتي وحي صوب نقضين إن الهدف تجسو هدف كاسير وحاو صوب نقضي إن الوقت كاغا ماريسو وقت كاغا ماريسو أيا صوبتكو بادي قوش هذا وقت قوة وحاو قالسا أعين وهاي صنو وحانا لوران كرا تاسو waawaabeen nolosheena waqti kasta oo taga qayb adiga ka mid ah ayuu tagaa waqtigu degdeg ayuu ku tagaa inaguna dhaafaa mana soo laabto marka uu soo laabtana waqti haysata waqtigaygu yar mashquul ayaan ahay in wax la mid ah ama qof la mid ah markaan chance helo ayaa waxaa saameyn doonaa ama qaban doonaa dhibku ma aha inuu waqtigu kugu yar yahay laakiin uma nidaamsanid waqtiga taas ayaa keenaysa inaad isku aragtid mashquul markasta markaynu sidaa leenahay waxaa suuragal ah qaarkeen inaysan wax muhiim ahayn oo ay ku jiraan sheeko ama wax kale oo maalayacni ah gacanteena ayaynu ku dilnaa oo aynu ku aasnaa waqtigeena qaaliga goor walba waxaaynu ku bixinaa muddo aad u badan oo bilaa nidaam ah daawashada TV-ga isticmaalka internetka ku hadalka telefoonka iyo sheeko maalayacniga islaamka inagoo og diinteenu sida uga hadashay bal u fiirso siduu ilaahay quraankiisa ugu dhaarto qayb ka mid ah waqtiga sida habeenka iyo subaxa ilaahay wuxuu ka hadlay quraankiisa kariimka sida maalinta iyo habeenku isku bedelaan sida uu midna uga dhigay iftiin midna uga dhigay mugdi aayaadkiisa in lagu cibro qaato mudan inay ka mid yihiin xikmadaha ku jirta
ma aha inay dhayal kugu dhaafaan ee waa mid mudan inaad sidaa tahay looga faa'iidaysto adduuniya akhraba oo ah siduu ilaahay ugu talagalay nidaami oo maamulo waqtigaaga kolba sida ugu habboon adoo ugu eegaya noloshaada iyo arrimahaaga kugu gaarka ah sidoo kale weydiimaha ugu horeeya ee ruux kasta inaan lug qaadin laga soo aali doono qiyaamaha waxaa ka mid ah maxaad ku soo qaadatay cimrigaagii iyo dhalinimadaadii shabaabnimadaadii waqtigu waa cimrigaaguna wuxuu ka kooban yahay daqiiqadaha saacadaha bilaha iyo sanadkiiba kusoo maray noloshaada nabigeena suubana ayaa xadiis shariif ah inoogu sheegay waxaa jira 2 nimco oo ay dadku badi haystaan waana caafimaadka iyo waqtiga horumarka qiimaha waqtiga waa sida birta xadiidka oo kale markastoo aad birta aad geliso juhdi iyo dadaal aad bay u sii qurux badnaanaysaa si aad u dhigto waa mid waxtar lehna waa markaas oo qiimaheedu kordho tusaale ahaan biraha qaar waxaa laga dhigaa midiyo qaar saacado qaar waxyaabo qaar ay waxay dumarku isku qurxiyaan qaar guryaha lagu dhisto qiimaha birtu wuu kordhayaa markastoo qaabka birta iyo waxtarkeedu la kordhiyo waana caafimaadka iyo waqtiga horumarkaasina caafimaadkaaga oo aad ku shaqaysatid birtaas oo aad gelisid iyo waqtigaaga oo aad gelisid ay birtaas qaali ku noqonaysaa haddaba dad badan oo horumarkaa sameeyey oo inaga mid ahay wuxuu haystaa qof walba oo inaga mid ah 24 saacadood maalintii keenta faqiirka ah ka taajirka ah ka faraxsan ka murugaysan keena yar iyo keena weynba intuba way haystaan 24 saacadood waxaa kaliya oo ay ku kala duwan yihiin habka iyo sida ay u isticmaalaan ugana faa'iidaystaan waqtigooda qaaliga ah tusaale maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin socota ah ayaa arkay nin xaaboole ah oo shaqadiisa xaabo gurigeeda ku jira oo geed saaran ninkii xaabolaha ah gudintii geedka xaabada kaga soo goosanayay af ma leh ama malisna ninkii socotada ahaa ayaa ku yidhi waa gudinta aad ku shaqaynaysaa maad iska afaysid wuxuu ugu jawaabay xaaboole waqti aan gudinta ku liso ama ku afeeyo ma hayo soodigan arkaya inaan mashquulahay bal u fiirso sheekadan maanta oo dhan geedka ayuu jaftaa kuhaya oo wax aad xaabo kaga dhigatid oo ku goosta oo muuhaysan laakiin wuxuu leeyahay waqtiga ayaa ugu yar oo wadan arkay inaan mashquulahay dadaal iyo tugti badanna wuu gelinayay laakiin kama faa'iideysan oo ma walisin haddana wax yar oo aan naf lahayn ayuu kala caraabaa galabtii haddii uu gudinta iska afayn lahaana xaabo badan ayaa u goosan lahaa mudeer waqtigeena uu leeyahay mahayo mashquul ayaan ahay wax badan ayuu soo hari lahaa oo wadana ku qabsado sidaas oo kale waqtiga waad habaysay waa gudinta xaabadaad ku goosanaysay wuxuuna muddo yar waqtigaana uu leeyahay yar oo aan naf lahayn ku qabsadaa maalin kasta ninkaasi halkaasna waa ku khasaaray haddaba caadada himiladaaduna waa inay dhaafsataa cunso hurdo iyo shaqo way adag tahay in waqtiga si fiican aad uga faa'iidaysataa una maaraysaa dadaal iyo juhdi badan geli sidaa waqtigaaga uga faa'iideyn lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh